بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو كم إذا بحضر ورباهين تقرأك سوماليلاند وححل لك سارية هاي إن هذا يجير حكومة دا يحسب الحاكم هذا يمسؤولية الدولة دا كيلا إنه وحي قفكوها وحدوني يا مناسبة إن رالي قلين كبحيو أما عدي لبسطي هذا الكسو يري حلبان عصب أو كم إذا حلبان هذا قولها الدقان كي عصب كان صوبها حسب الحاكم ككلية كاسو كهضلي قابكي لوجا جولستي حسب الكلية حسبت المعارض كنا يقولها دقيقة كفر عضي جوشك أي ما تحلك كل وريجين حلبان كانوا الله يلا محمد ديري عبدي وحوصي بريرة أمان ولا طلع حسب المعارض كا أنا كسر بحين سوى هوسو اللي جاي حسب الكلية وحلبان لماذا كرسي أو كهلاي وأنا كره اللي قالين إن مسؤوليتي دولة مسؤولية حسبك وزير قناعسكي ورشدوه بيلها وكل مترو ودمان توت كترسن كوا لقى جولستي قولها دقيقة لقى جولستي يكو جولستي بقى صوّا أما حبنا قولها وسيرة كل مترو بيلها أصلا وحكلون هرك كشيء جيا إن هذا الكاحل دبانك كم جاي حسبي هذا حسبك كلية يو إسلام كانوا كو أماني حزب المعارض كوطني وياي فكري سجى وجارة وأنا لقب بيشة أما بيلها وزير كجناعسية ورشدوه كل متلو قولها وزير هذا سيادرتنا مرة بعد يمر صدحات بلغها اللي قلنا يو عد كستو أورد بسطح هذا الكاسي كسو يده حل بانك ونسود وين نقوش المعارض كهلان أي كراست كل وريجين وحنا هذه يجر وحنا لو بهي إن هذه يجر qofku xisbiga uu karaameeyo uu ka soo baxay wuxuu libaankaas sheegay in xisbiga kulmiye uu si qoysnimo ama reernimo u ololeeyo waqtigii doorashooyinka halka xisbiga wadaniga uu ku tilmaamay inuu si qarannimo ugu ololeeyo guushana ugu raacday wasiirku arrintaasi weligeedba waxa uu ka muujiyay dadaal fara badan iyadoo la ogaa in xisbiga wadani uu weligiiba gobolkan awdal kaga horreeyay xisbiga mucaaradka ee wadani doorashadii ugu dambeysay ee xitaa madaxtooyada waxa uu ka horreeyay 30 kun oo cod in ku dhow gobolaba kaga horreeyay waana guul maanta ee wasiirkaasi dadaal muujiyay inuu xisbiga kulmiye la simo xisbiga wadani oo awal kaga horreyn jiray meel iska lahaa ay ahayd waxaan u sheegaynaa qolayahan kala guuleystay walaalahay ama mucaaradka ama xisbiyada mucaaradka inaanay ka badbadin guusha ay maanta ku heleen golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka maadaama aynay weli noqon xisbil xaakimka dalkana aynay isku qaadan inay iyagu dalka gebi ahaan wada xukumaan ama laba dowladood gobolka waddanka ka wada jirto kaalinteedana dowladda siiyaan iyaguna kaalintooda loo ogolaaday ee dastuurku siiyey ee guusha ku hanteen loo ogolaaday maanta inay ixtiraamaan bay ahayd waanaanu ku ixtiraamaynaa sida ay u dadaaleen ee ay maanta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka dalkaba ula wareegeen waxaanu u sheegaynaa in waqtiga ay noqdaan xisbil xaakimka ay iyagu gebi ahaanba dalka sidaa ay maamuli doonaan waana u rajaynaynaa inay guul kale ka gaadhaan hase yeeshee waqtigan ay cagta dhigaan maamulka jira iyo dowladda jira ku ixtiraamaan xukunka dalka